بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن وعن ونكسن داود الكسر دوادا برنامج كتلوذاق وهذا يوكليات كداوتان Somali News TV xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. barnaamijka toddobaad kan waxaan ku eegi doonaa dhacdooyin isxiga oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose kuwaasi oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ganacsato iyo waxgaradna ay ka dhigeen arrinkaasi. barnaamijka waxaa marti ugu ah isla markaana igala qayb galaya Xasan Maxamed Mire oo kamid ah ganacsatadii ku hanti waayay dhacdooyin ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waana milkiilaha carwo lagu magacaabo Shamsuddin oo la sheegay in khasaare lixaad leh uu ka soo gaaray weerar lagu soo qaaday hanti gaaraysa ku dhawaad 400 oo dollarna ay ku basbeeshay. dhanka kale waxa igala qayb galaya nabadoon Carabay oo kamid ah nabadoonada deegaanka isagana waxaan ka weydiin doonaa sida ay wax u jiraan iyo halka ay wax ka qoransan yihiin. mudanayaal soo dhawaad marka hore. Somali News TV. aad baad u mahadsantihiin. waa idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad igu ogolaateen barnaamijka inaad igala qayb gashaan. marka hore haddaan ku bilaabo dhankayga midig Xasan Maxamed Mire sidee wax u dhaceen sideese dukaankii aad milkiilaha ka ahayd wax u soo gaareen. bismillaahir rahmaanir rahiim. xalayto abaarihii lixdii iyo barkii habeenimo ayaa anagoo maaragtay nabad ku jirna xilli nabadeed iyo jawi degan ayaa waxa na soo weeraray niman dabley ah oo Maleeshiya ah oo ilaa hadda aanan garanaynin sababta iyo waxa keenay. waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah Soomaalidu way garanaysaa dhaca maaragtay niman maaragtay hanti ay dhacaan doonaya waa la arki jiray laakiin waxaas wax ka bedelan bay arrinku ahaa. waxa maaragtay niman hubeysan bay ahaayeen meeshii bay soo weerareen meeshii waa ay gubeen waxa ninka la yiraahdo baabuur taagneed meesha oo saliid waday ayagiina waa ay gubeen nimankii baabuurta watay waa ay dileen sidaas wax u dhaceen. waa gartay khasaaraha hantiyeed ee soo gaaray dukaankii milkiilayaashooda qaybtaad ka ahayd halkay gaarsiisan tahay. wallahi ilaa 400 lagu qiyaasayaa walow aan maaragtay wali aan fiilino xilli maaragtay hordhaca uu yahay haddana ilaa 400 aan gaarsiinayna inay tahay. ma jira hanti ka badbaaday dukaanka. maya ma jirto xilli dambe ahaa magaalada amni darro iska jirta oo maaragtay isla markii wax dhacaan gurmadku ma sahlana oo maaragtay soo ma gaari kartid meesha marka wax badbaada huma aysan jirin oo meesha iska badbaado. waa maasan tahay wax ku soo noqon doona Xasan Maxamed Mire nabadoon Carabay Afgooye iyo guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose salaadiintooda ay qayb ka tahay. ma dhacdadii ugu horeysay ee degmada ka dhacday mise waxa jira dhacdooyin kale oo aad xusteen isla markaana ka dhacay deegaanada iyo degmooyin ka tirsan gobolkan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. sagaalkii bishii afraad 2016 waxa ka dhacay kubaniga Hijra ayaa laba motor oo waaweyn oo kubanigaasuna uu yahay kubaniga magaalada korontada sii jiray ayay milisiya baareedku soo weerareen waxayna ku gubeen laba motor. waxaa kaloo jirtay 12 bisha gaalwar beer ku taala oo bareefada oo Xaaji Cabdi Madoobe uu leeyahayna laba motor ayaa laga gubay. dhacdada xaalad dhacday ee ku dhacday kubaniga Shamsuddin ama carwada waxaa halka ku naf beelay ninna uu ku dhintay carwadii waa la gubay baabuur saliid siri waa la gubay. waa dhacdadan waa midii saddexaad ee ka dhacda degmada Afgooye. maleeshiyadan aad tilmaantay in dhacdooyinkaasi ay geysanayaan ma degmada ay ku sugan yihiin mise meel ka baxsan. maleeshiyaadku waxay ku sugan yihiin lambar 50. sideed ku xaqiijin kartaa arrinkaas. waxaan ku xaqiijin karnaa maamulkii degmada Afgooye markii laga bedelay gudoomiyihii hore Cabdiqani ayaa milisiya beeleedka haystay wuxuu la tagay lambar 50 ayuu la degan yahay wuxuu isbahaysi la galay waafow oo horay dagaal uga dhaxeeyay bahweynta Habargiir iyo beesha Dire. isbahaysiga uu la samaystay uu ka soo baxay waanu ognahay waanu la soconay halkaas ayay ka soo duuleen milisiya beeleedka. marka laga soo tago waxyaabahaasi aad tilmaamayso tusaalaha aad u soo qaadanayso waxyaabo cad oo cadeen noqon kara oo aad ka haysaan miyaa jira. waxaa lahayn karaa dadka meesha meel walba ay wax ka dhacayeen dad baa joogay dad kamida milisiyaadka waa dad ay garanayeen ayagu
oo sida adiga hadda ay wareysanayso aan ku garanayo kale u garanayeen dadka joogay markay ka dhacday kubaniga baalkan la hijra markay ka dhacday waxay tilmaamayeen dadkii dad kamida xalay dhacdadii dhacday waxay tilmaamayeen milisibeeleedkii dad kamida meeshii ay soo mareen meeshii ka yimaadeen intay ahaayeen intuba dadku waa dad is-yaqaan degmada Afgooye 23 beelood ayaa degtay waa gartay degmada Afgooye waxaa gacanta ku haya dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidee ugu suurta gashay dadkana tilmaamayso in degmada ay yimaadaan dhacdooyinkan ay ka geystaan sidee ugu suurta gashay waxay ugu suurta gashay horta degmada Afgooye way weyn tahay meel walbana kama ay joogaan ciidamada Koonfur Galbeed sidaas la ajligeed nin degmadii oo deganaay oo ku dhashay xaafadaha iyo jidadka oo soo marayaan waxay la tahay inaan wax ilaali karo oo ka hortaaga marka hadaysa askartu la kulmeen ma jirto waa gartay dadkan aad tuhmayso waxa ay leeyihiin salaadeen nabadoono iyo siyaasiyiin xiriir ma la sameeysan hadda maanta ayaan ballansanahay hadii Ilaahay idmo duurka markii la tukado ka bacdi inaan odayaasha iyo salaadiinta laga wada hadlo oo barnaamijkaas dhacay aan u gudbino sida aan uga xunnahay ama aanan u istaahilin waayo dadka hadda wax geystay oo lagu tabayo waa dad nabad iyo wanaag iyo walaaltinimo dad lagu yaqiinay way dad colaadeed ma isan ahayn laakiinse hadda waxaa keenay isbedelkii laga bedelay gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdiqani oo halka tagay ee uu u tagay Waafow oo ka tirsan beesha direed horena dagaal uga dhaxeeyay bahweynta Habargidir waa gartay laakiin waxaa jirtay dhowr jeer in shirar ka dhacay degmada Afgooye iyo deegaano kale la tilmaamay in colaadii la soo afjaray waxa ugu dambeeyay shirki ka dhacay ee degmada Afgooye waxa la tilmaamay in shis buuxa la gaaray oo colaadii la soo afjaray xilliga wixii ka dambeeyana loo gudbay waji cusub colaadan iminka aad tilmaamayso maxaa farqiga u dhaxeeya shirkii ku soo adlaaday Afgooye ee la sheegayay in colaadii la soo afjaray iyo colaadahan heshiiska miyuusan jirinba shirka horta hadii jeer heshiiska afka baa laga sheegaa wax fulin la yiraahdo mal Koonfur Galbeed awood ay wax ku fulisay heshiiskaas ma jiro 3-4 jeer beesha direed iyo Habargidir way wada hadleen warqad baa la iska saxeeyay saxaafadda meediyaha loo yeeraya wasiirka madaxa imaanaya madaxweynaha Koonfur Galbeedka ayaa imaanaya waxa la sidaas lagu heshiiyay wax la fulinay oo practical oo dadkii wax kala gaareen ama ciidamo la kala dhex dhigay ama amnigii la sugay ama qasaarooyinkii wixii wax kala gaareen laga wada hadlay ma jira waa gartay salaadinta heshiiska saxiixaysa miyaan kubii saxdi oo beelahan matalayaan ahayn salaadintu waday saxiixayaan beelaha matalayaan fulin wax la yiraahdo ayaa loo baahan yahay cidda laga rabaa waa cidda Koonfur Galbeed dadka sheeganaya inay xukumaan oo ay gobolka Shabeellada Hoose madax ka yihiin iyo maamulka Koonfur Galbeed ayaa laga rabaa inuu amniga sugo waa gartay waa kugu soo noqon doona Xasan Maxamed Mire ganacsatada dhibanayaasha ah dhibkan uu saameeyay aad qayb ka tahay hanti badanna waa aad ku weysay maxaa dareemaysaa wallahi waa iska maaragtay waxaan leeyahay waxaana iska muqaddar waaye wax walba dhici rabay waa ay xukmanayeen culays waan dareemayaa hadda ninkii maanta hantidiisii waayay wado aan maaragtay uusan galabsanna ku waayay waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay haddana maaragtay khayr badan baan Ilaahay ka rajaynayaa oo waa la shaqaysan hayaa waxaan laakiin si aad murugo gelinaya albaabka xiraayo furmay ayaan maaragtay ayaan maaragtay waa gartay adiga milkiilihii aad ahayd waxa jirtay in shaqala dhowr ah ay ka shaqeyn jireen shaqalaha iminka shaqalaanta ah ee u shaqeynayay company-ga Shamsuddin misay ahaayeen la 9 qof baa ka shaqeynaysa xaruntaas waa gartay dhamaantood iminka waa baagamuunda waxay qabanayaan ma jirto maya laakiin se waa maaragtay waa barnaamijyadooda waa la saxayaa waxba culays dhinacaas uma jirayaan waxa uu muhiimadu tahay in uu nabadgeliyadii lagu wada noolaan lahay magaalada laga helo hadii kale culaysku uu badanaya waxaad bixisaan canshuuro Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxay ka arrimaysaa degmadan oo canshuuro laga qaado maamulka canshuurta idinka qaadayay idin weydiinayay marka canshuuraha la gaaro lacagaha idin weydiinayay ammaankeena muxuu u damaanad qaadi lahayaa wallahi ammaankaas waxaan isleeyahay waa arin maaragtay dawladda Koonfur Galbeed madaxdeeda iyo midda dhexba ay ka wada dhageysan yihiin sida xaaladdu ay tahay xaaladda amni ee dalka gaar ahaan degmada Afgooye waxaan oran karaa degmada Afgooye meelaha ugu maaragtay xasiloonida yar waaye sababta ma aanan garan waxaan u saabeynayaa maamulada oo maaragtay qaabkii la rabay loo soo xulin markii hore waxtarka ku yeelan lahaayeen saasan baan ku macnayn karaa halka muxuu kula muuqdaa
wallahi xalka wuxuu ila muuqdaa in la helo maaragtay system fadhiya oo ammaanka lagu aamini karo haddii kalena hadde maaragtay la yiraahdo dadku qaab unbay u wada dhaqmayaan qolo walba oo wax isku tashato wixii maaragtay isfahmi karaa oo si ay maaragtay nabadgelyadooda inta wada sugtaan isla deganaadaan wixii kalena ay u maaragtay sidoo kale ku badi waayaan ay u yeelaan waa mahadsan tahay nabadoone colaadan soo noqotay waxaa ku hanti beelaya ku carur beelaya dad aan waxba galabsan oo suuragalna ay tahay labada dhinacba inaysan ka warqabin haddana loo colaadinayo waxay ka soo jeedaan labadii qolo ay saysay wada ka duwan wadada iminka socota ma raadiseen horta anagu dadkii dhibka geystay ma nihiin dadkii loo geystay baan nahay dadkii dhibka geystay oo walaalaheen oo dad nabad iyo wanaag lagu yaqiino ah ay deegaankaana lagu wada joogo sideeda dadkana nabada anfacda ee nabad la-aan waxba ma tarto nolol ma leh waxbarasho ma leh caafimaad ma leh qofku bini-aadanka inuu nabadgelyo helo oo kusoo toos oo ku seexday horta nolosha ku jirtaa annagu ma ka caajisayno dadkii wax noo geystay way noo yeereen inaan la hadalno inaan u sheegno colaaddu waxay tahay annagu waa naqaanaa dad taariikh fog baa nahay colaadda kusoo jiray colaadu inay wax disho wax burburiso maahana waxba ma tarto dadka hadda bilaabayana waxaan ugu digayaa waxaan laynku aqoon qofku haddii uu hadda bilaabo waxaa ka imaanaya waxyaala dhibaato u keenaya mujtamaca iyo dadka ku jiraba intaba waxaan uga digayaa inay ka waantoobaan oo wanaagga iyo nabadgelyada la ilaaliyo deegaankan ilaahay baa iskale dadku waa wada degan yahay qof walbaa hantidiisa iyo wixiisa uu leeyahay inuu laga wada shaqaysto oo walaalnimadii iyo ehelnimadii iyo sidii iyo adeerow iyo abtigii iyo wixii lagu wada joogo oo dhan in lagu wada joogo waa gartay waa mahadsan tahay waa kugu soo noqonayaa xasan maxamed mire dabkii xalay kacay markii kasaaraha uu bilowday ma jiraa gurmad soo gaaray oo in hantida qaarkeed la badbaadiyo la idin sameeyo ma jiraa maya ma aysan suuragelin sabab maxay tahay sababtu ammaanka magaalada oo maaragtay iska xun iyo qolo walba oo meeshii joogtay in bay difaac ka gashay oo maaragtay ma suuragelin in maaragtay la soo gudmado dhinaca dawladda waa mahadsan tahay nabadoone haddaan dhankaaga soo eego si inkastoo aad tilmaantay in colaadi laga qurux badan yahay oo nabadi aad u ololeynaysaan maxaa fariin ah ama baaqa aad u diri lahayd dadka waxaan u diri lahay dadka degan degmada Afgooye waa 23 beelood inay nabadgelyo iyo walaalnimo ku wada noolaadaan waxyaalaha amniga wax u dhibayana ay si wada jira oo midaysan looga hortago waayo meelaan nabadu ka jirin nolol kama jirto waxaan u soo jeedi lahay beelaha hadda wax geystay iyo kuwa kaloo deganba in iyadoo la isku duuban yahay laga hortago si aysan wax dambe iyo dib dambe aysan u dhicin waxaa tilmaantay in degmada Afgooye ay degan yihiin dhowr iyo 20 beelood laba beel wada degan gobolka Shabeellaha Hoosena ay hayaan in beelahan aad u yeertaan aad tiraahdaan balna kala qabta ma idinka suurta gashay mise qorsheynaysaan waa ku tala jirnaa inaan u soo bandhigno beelaha degan degmada Afgooye oo dhan wixii dhacayna way og yihiin wayna noo wada yimaadeen beel walba iyadoo ka tacsiyeynaysa waxaan rabaa inaan barnaamijkan uga faa'iideysto gobolka Shabeellaha Hoose dagaal baa ka dhacay intaasoo sano socda oo wiil iyo walaal lagu waayay oo beesha habargiir balweynta habargiir iyo beesha direed ka dhex socda meel kasta waa la gubay hadda waxaa la gaaray si la isu dilayay oo beerihii loo gubay in guryihii la gubo in waxyaalo ka xun oo dhaqanka bini'aadanimada la sameeyo ayay hadda maraysaa marka wixii Shabeellaha Hoose ka socday haddii hadda loo soo qaado oo loo soo raro Afgooyena ayaduna way gubanaysaa sida meeshaas oo hadda aysan nolol uga jirin caafimaad uga jirin waxbarasho uga jirin kaabayaashii dhaqaalaha oo dadku bini'aadanka ay ku noolaayeen oo eber ka yihiin ayay degmadu ayaduna noqonaysaa waa in laga hortagaa oo loo midoobaa wax allaal wixii amniga wax u dhibay waa hagaag daawadayaashaan oo jecelnahay weli waxaad daawanaysaan haddii goor dhow aad inagu soo biirtay barnaamijka tala wadaag oo idinkaga imanaya Somali News TV xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho barnaamijka waxaan ku gorfeynaynaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose kuba oo ay ku hanti beelan ganacsato Soomaaliyeed oo deegaanadaasi ku nool halka dad kalena naftoodiiba ay ku waayeen xasan haddaan kugu soo noqdo ma jiraan dhacdooyinkii dhacdan intaysan dhicin ka hor degniino iyo waxyaabo idin soo gaarayay oo hanjabaadiye ahaa ma jiraan wallahi intaan ognahay waxyaabaha jira waxa kamid ah
waraaqado la daadiyo waa ay jireen oo maaragtay la leeyahay ficilaan samayn doonaa xun oo sida maaragtay midkan hadda ay sameeyeen oo kala waxyaabaha kaloo jiray waxaa ka mid ah shaarica markii la qiimeeyo guuxa dadka ku jira waa laga dareemayay waxyaabaha kale oo hadee maaragtay dhibabka hoo jiray waxaa ka mid ah ninka degmada guddoomiyaha ka ahaayoo degmada ka tegay wuxuu maaragtay iclaaminayay dagaal inuu magaalada kusoo gelayo oo wax qarbudayo oo wax maaragtay hanti laakiin soo maahan adinku waxaad tihiin ganacsato colaadaad ku jirtaan wallahi colaad kuma jirno waa iska un maaragtay wax aan la fahmi karin reer hebel un baad u dhalatay waaye hadda waxaan ka hayno waan fahmi karna ama uu fahmi karo lama arko waa un maxaad maaragtay reer hebel u tahay arrinkaasna dee waxaa garan kara ninka maanta maaragtay qora ku noolka ama jabhadka iska noqday ama maaragtay mooryaannimada raba inuu ku noolaadahay ma fahmi kare waxaa garan kara ninka maanta ganacsiga ama maaragtay tartiibtiisa u xamaalanayo u nool ayaa fahmi kara marka waxaan arrinkaas la rabaa cidda ninkaas qaraabadiisa ah waxna fahmaydo colaada dhibaatada ay leedahay garanaysaa inay wax u sheegto waa lagama maarmaan waa gartay nabadoon wax la leeyahay warqadaha la daadiyo warqadaas ma ka warqabtaan ninkiina salaadiinta daatiin waa ka warhaynaa anoo rabo barnaamijka inaan uga faa'iidaysto warqadahaas waa la daadiyey 3 jeer oo la leeyahay maxaa ku qornaa warqadaha waxaa ku qoray waxaan uga digaynaa beesha Habargidir in laga saari doono gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Afgooye in hantidooda la gubi doono kubbaniyaashooda warshadahooda carwooyinkooda baqaaradooda warqadaha waa la daadiyey waana aragnay anaguna markaa waxaan dareemaynay dadka warqadaha daadiyana waa dadkii dagaalku naga dhaxeeyay beesha direed laakiinse dagaalkii naga dhaxeeyay beesha direed waxay hadda message usoo dhiibtay beesha Galadi oo Cabdiqani oo ka dhashay ayay usoo dhiibeen Galadina anagu waxaanu ku naqaynay dad colaadeed ma ahayn dad nabadeed dad wanaag jecel ayuu ahaa iyo dad walaalnimada jecel ma la xiriirtan salaadiinta uu ka soo jeedo ninkan aad tilmaamayso ninkan aan tilmaamayno way ogyihiin dadkiisu waana ka warqabeen waxa soo soconaya mar walbana waxay laayeen dadku hays dejiyo nabadda ha laga hortago anagu raalli kama nihin waxa dhacaya waayo beeshan Galadi iyo beelweynta Habargidir waa dad walaala waa dad intaas oo sano soo dhaqmayay waa dad ilaa 1000 sano wada deganaay halkaana ku wada noolaay oo wiil iyo walaal iyo seedi iyo abti iyo adeer isu ah marka wax wanaaga ay Galadi un baa naga dhaxay wax colaado nagama isa dhaxayn aan markaan u sheegnana waxay leeyihiin waan ka xunnahay arrimahaas waxaana ka qaban doonaa laakiinse ilaa hadda wax laga qabto ma arko 3 dhacdo ayaan hadda maraynaa ayaga ayaan waxaan ka rajaynaynaa inay nabadgelyada ka qayb qaataan wixii dhacay oo dadkoodu geystana ay xaalmarin iyo apologies ka dhibaan dadkan la beegsanaya ma askar qoryo sidata miya mise waa dad ganacsato ah ama dad kale oo maati ah waxba aan galabsan horta dadka sideeda annaga waxa dagaalku naga dhaxeeyay oo ka dhaxeeyay beelweynta Habargidir iyo beesha direed markii Cabdiqani uu ku biiray Cabdiqani waxa lagu la xiray oo heshiis lagu galiyay oo aanu ognahay oo dadka casabadiisa iyo dadka kale oo intaba meesha degan ay noo soo sheegay in lagu leeshiyay waxaad ku joogi kartaa lambar 50 inaad tagto Afgooye guryaha Habargidir aad gubto shirkadaha aad gubto dukaamada aad gubto sidaas aad ku joogi kartaa isbahaysina ku noqon kartaa sidaas ayay Cabdiqani iyo raggii raacay ay ku soo duulayaan waana gacan aanan ka maleysanayn beesha Galadi oo beesha direed ay noo adeegsanayso waa maasantahay waa kugu soo noqon doonaa qaybihii dambe ee barnaamijkan waan soo gaarnay ugu dambeyntii maxaa fariin u diri lahayd wallahi waxaan ku maaragtay waxaan dirayaa oo aan maaragtay waliba u dirayaa cidda waxa fahmi karta oo ama ganacsatada ah ama culimada ah ama cuqaasha ah nimankaas maaragtay mooryaanta ah ay ka dhasheen inay shartiisa dadka ku dhibtaraan haddii kale fidnadu dee maaragtay ma ku ekaan maydo sida hore loo arkay ama dee maaragtay waxyaabihii maaragtay hore loo soo xaqiijiyay cidda fidnada wada kaliya fidnadu kuma ekaato fidnadan haddaan laga hortagin oo aan la demin cid walba goobteeda ganacsi iyo gurigeeda iyo waxa iyo jidkeeday ku saameynaysaa waxaan codsanayaa oo aan ku baaqayaa in ninkaasu dadka uu ka dhashayo ay shartiisana dadka ka nabadgeliyaan oo ka qabtaan wada wixii uu haleeyayna ay ka samafalaan naf iyo maal ayaa ku maqan hada dadka xoolihiisuna hadur noqon maayaan dadka xoolihiisu hadur ma noqonayaan
in marka kolley maanta la ballansan yahay wanaag badan aan ka rajeynaynaa marka wixii maaragtay kolleyto kasoo baxa kulankaas ayaan wax ku qaybsan doonaa haddii ilaahay idmo. ugu dambeyn adoo fursadan ka faa'iidaysanaya maxaa dhihi lahayd dadka? horta waxaan u jeedi lahay dadka ku dhaqan 23 beelood oo degmada ku dhaqan Afgooye waxaan u baaqi lahay in nabadda la ilaaliyo lagana faa'iideysto waayo nabaddu nolol ma jirto haddaysan nabadu jirin in beeluhu ay ka wada hortagaan wixii nabadgelyo xumada keenaya weliba khaasatan beesha Geladi ay ka qayb qaataan waxyaalaha ay wiilashoodu iyo ay sameynayaan gudoomiyihii hore Cabdiqani oo uu isbahaysiga la galay dad habar gidir la dagaalsan beelaha ku nool oo degmada degan oo 23 beelooda oo deganna waxaan ugu baaqayaa waxa ka dhacaya walaalayaal degmada Afgooye waad u jeediin haddii dhibku sii socdana cid walba meeshiisa uu tagaya in laga wada hortago in loo soo baxo sidii loo xalilahay iyadoo isku mid leeyahayna in laga hortago oo nabadgelyada la ilaaliyo wanaagga la ilaaliyo sidii dadku awal u wada dhaqmi jiray oo u ganacsan jiray oo caafimaadku u jiray waxbarashadu u jirtay oo beeraha loo falanayay oo gaadiidku u shaqeynayay intiiba in la ilaaliyo ayaa la rabaa waayo fidna hadday timaado nin caana cabaya lama arko nin walba wuxuu cabayaa waa cudur fidna hadday timaado marka intii dhibkaas oo soo hadda si ballaaran oo meesha hadda uu maraya lagu xakameeyo ayaan u soo jeedi lahaa. aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen ganacsade xasan maxamed mire sidoo kale barnaamijka waxa igala qayb galayay nabadoon Carabi inta barnaamij noocan oo kale ah aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo amaana.